بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أما بعد، ولا ليال سورة مقعدة وحل إلى ألم نشرح. سورة وحكو قرصون سراء أفربدا وقفك أسهلية إن إلهي أفر مركا فرج، ama waxa weeye uu u soo dego qofka wax kasta oo uu dareemayo oo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ka kor qaado, waxaas oo waxa weeye ciriiri ah ama waxa weeye shaki ah ama hammi ah ama waxa weeye murugo ah. marka muhiimadda iyo taladu waxa ay tahay siraha ku duugan qofku wuu istaagayaa marka wuxuu aqrinayaa suuradan oo akhriyayaa suurada waa suurad yar, waa alam nashrah. hamiga iyo warwarka iyo murugada iyo dayiqa iyo ciriiriga ku haya way ka tagayaanay. saadarteed haddii aad akhridid adiga oo daahira oo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala dartii u akhrinaya, waxa hubaala hamiga iyo murugada inay ka tagayso. Ilaahay subxaanahu wa ta'ala suuradan markii uu soo dejiyay nabiyullaahi Muhammad ayuu kula hadlayay calayhi salaatu wasalaam oo uu lahaa alam nashrah, miyaana waasicin laka adiga nebi Maxamedow sadraka laabtaada, ووضعنا ميانا كرهن عنك حقاق وزرك مركا قففكي iyo ذنوبتي ميانا كرهن الذي قففك iyo ذنبيداسو انقض ظهرك مركا دبركاga cusleeyay ورفعنا لك ذكرك sheegaaga iyo waxa weeye dhikrigaaga maana kor u qaadin. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا culays kasta oo aad dareemaysid waxa ka dambeynaya fudayd. markii aad faaruqdid oo waxa weeye Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ka kaxayo wax kasta warwar iyo hami aad dareemaysid, Ilaahay u dhawow. wa ila rabbika farghab, Ilaahayna subxaanahu wa ta'ala rajay weey. marka aad suuradan akhrisid fudayd baad dareemaysaa, xasilooni baad dareemaysaa, waxa dareemaysaa qalbiga warwarkii iyo ciriirkii kaaga jiray oo ka tagay. laakiin hays dhigana Ilaahay subxaanahu wa ta'ala markuu ka kor qaado waa inaad Rabbi subxaanahu wa ta'ala u dhawaataa oo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala aad mahadisaayo, aad ku dadaashaa wixii Ilaahay ku faray. hadday salaadii noqoto, haddii ay noqoto sadaqadii, haddii ay noqoto soontii faradka ahayd iyo tii sunnaha ahaydba, waa inaad ku dadaashaa dhikriga, waa inaad ku dadaashaa quraanka. Ilaahay subxaanahu wa ta'ala fadligiisa ma soo koobi karno. waa suurad yar, waad xiftin kartaa. akhri, fadhiiso, warwarka iyo murugta ku haysa way ka tagaysaa insha Allah biidnillahi alkariim. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.